بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا وناكسن دقيستياشا قدرينتي قيمها مدن برتاد نقد داوانسان وادل تي في حرورتي سمقالة إدمنتنا دالك كندا waxaan wareysi gaaban la yeelanay Maxamed Faarax siyaasiga Maxamed Faarax waa mahadsantahay deeq adiga iyo dadkana daawanaya waa salaamaya waa hagaag Maxamed waxaan rabnay inaan ka wajino dhowr su'aalood xaaladda imika gobolka awdo ka taagan tahay gaar ahaan arinta xaaladda siyaasadda iyo xaaladda dhaqaaleed ba labadaba tay noqotaba sidaan ogsoonahay waxa jirtay muddadii dambe labada wiiga dambe inay arintu si xawliyo u socoto gaar ahaan xaaladda siimoodi iyo macdanta iyo kheyraadka buurahaas ku jira bal maxaad ka ogtahay arintaas waa mahadsantahay deeq horta arrimahan macdantu horta gobolku waa gobol runtii caan ku ah maaragtay xagga macdanta sarfiyadii dhulka laga sameeyeen waa meelaha ugu badan ee macdanta ku jirto runtiina dad qurbaha muddo joogta waxaa laga yaabaa inaad aragto dad reer awdal oo dhagaxaanta emeraldka ka soo qaada awdal oo ilaa oo Canada sagaashamaadka keeni jiro beelaha dhulka degan ama reer nuurka reer maxamedka jibraaciga way keeni jireen dhagaxaantaas iyagoo u raadinaya suuq iyo xabayn ka horta marka arintan macdanta dhulka laga gurayo dhagaxaanta dadka dhul caan buu ku ah horta gobolka laakiin haddaan ku noqdo arintan imika simoodi ee saxaafadana ku jirtay dhibkooyna ka taagayeen arintan horta waxa weeye markii hore waxay u bilaabatay Chinese-ku markay yimaadeen emerald iyo exploration bay ku bilaabatay laakiin markii dambe si lama filaan nimankii Chinese-ki waxay heleen in macdanaha qaaliga sida beryllium to kale ay heleen dad badan sidoo ogeena beryllium to waa biraha metaliska kuwa ugu fudud uguna mataqaana bartida dhalaalka marka la yiraahdo oo dabka lagu waxaynayo ilaa iyo 180 degree centigrade bay qaatay inay ku dhalaasho marka waa bir isku darsatay fudayd iyo heat resistant bay isku darsatay macnaheedu dabka iyo kuleelka u adkeysan karta marka runtii waa bir metal laga sameeyo oo loo isticmaalo waxyaabaha mataqaana aeronautics-ka diyaaradaha missileska nuclear-ska waxyaabo fara badan oo runtii qaali iyo muhiim ah laga sameeyo Chinese marka arintan markay heleen isla markiiba marka nimanka dawladda ku jiray go'aamay qaateen hawshan maadaama bira qaali ku jiraan dhaqaale badan laga helayo inay mataqaana ay hawshan dheefteedana qaataan la wareegaan marka ninkan wasiirka macdanta ninka ducaal la leeyahay laba arrimood oo muhiim u bilaabay marka 2013 labada arrimood waxay ahayd waa marka hore horta inuu helo gobolkan maamulka gobolka awdal inuu la wareego oo waad ogeedin barigii hore dadka localka deegaanka ayaa gobornada laga keeni jiray soo haddaba hawshiisan guracan ugu suurta gasho wuxuu codsaday waa marka koowaad inuu gobolka maamulkiisa helo iyo talabaad inuu sameeyo wax la yiraahdo private militia oo dhulkan macdanta laga qodayo u waardeysa maadaama kacdoonkii awdalisiidna meelaha ka socday wuxuu isiri armayda macdanta la qoday haduu dhib ku timaada marka labada arrimood buu codsaday arrintii uu horeeyay way sameeyeen oo ninkii Sadci iyo ninkii hore gobornarka awdalka meeshii waa laga qaaday in reer Burca la keenay kadibna contract buu galay maanta waxaan maqlay isagoo leh contractka haddaan baarlamaanka horgeey waa benti weyn sababtoo ah Chinese in malaayiin dollar ma geliyeen oo mataqaana building iyo mining pit iyo mataqaana conveyor belt iyo heavy equipment maba keeneenba oo meesha hawlaha kama galeen oo malaayiin dollar ma geliyeen hadduu san contract jirin marka waxa ay u maqalaan contractku inay galeen ninka la yiraahdo Xirsi oo madaxtooyada matalaya ducaale oo wasiirka macdanta iyo petroolka iyo gobornarka awdal saddex nin oo reer Burca ayaa waxay go'aan ku gaareen macdanta awdal contractkiisa inay galaan si ay u gurtaan iyagoo haba yaraatay dadka deegaanka kala socon tii milishada private kuna de way socotaa bar doodooda wanaga aragnay haddana saansaanteedii waa socotay iyadoo lafteeda soo socota marka Maxamed aan kaayra dhaxgalay in plantka dhismihiisa kaliya waxa ku baxay 2 milyan saan ku helnay warar naga soo gaaray qalabka si loo dhisay habkii wixii ku baxay lacagtaas ma China qalabka maaha waa plantka kaliya dhismihiisa lacagtaas waxa bixiyay China marka dhismiye maadaama China la yimaadeen qalabkii plantka ma waxa bixiyay dawladda meesha ka shaqeysa mise waxa bixiyay China dawladda xuma bixin oo dawladdu nimanka Chinese-ku exploration markay sameeyeen ay hawlahan arkeen iyaga ayaa process ka bilaabay laakiin si tuugay ku bilaabeen oo cid ogeed ma jiro hadda annagu waxaynu ku war helay dadka in xoolihii leeyahay sunbay u dhinteen iyo mataqaana markii la yiri Chinese-ku ay yiraahdeen 500,000 oo tan oo beryllium aan meesha ka soo saarnay markay yiraahdeen waa lacag weyn waa dhaqaale weyn tii baa lagu soo wada baraarugay laakiin
hawsha cidba ma ogeyn waa si kontradada beentay wadaan bay ka mid tahay laakiin hawshu markii soo baxday la arkay inay dafayadu ku jirto waa in wixii mataqaana dadku way arkeen marka taasaa keentay anigu runtii ma qabo iyagu inay wax lacag geliyeen shaaniska lacagta geliyaan qaba waa sax waan garanay saan ogsoonahay waxaa jirtay inay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladda maamulkan Somaliland inay waxoogaa ay isku jawaabeen labada wasiir oo ay dowladduna codsatay inay sida ugu dhaqsaha badan leh arrintan looga baxo gobolka shirkadaasna loo xidho horta arrintan dowladda Soomaaliya soo faragelisay gaar ahaan wasaaradda maanta biyuhu ay ka hadleen horta waxay muujinaysaa maamulkani horta maamul waxa weeye waa illegitimate yani waa maamul dad loo kala sameeyeen laakiin maamul horta adduunkuna aqoonsan yahayna maaha wanaad ogtahay mooyaane international lawga heshiis markaad galayso waa inaad waddan la aqoonsan yahay tahay kow shuruucda caalamiga inaad raacayso waa qalad waddan dhulka Soomaaliyeed kamid horta inay shirkado shisheeyay iyagoo mataqaana cidna ogeysin gaar ahaan hadda dowladda Soomaaliyeed baa jirta Soomaa horta taas waxay ku muujinaysaa nimankan horta inay ula bacaa ku taagan yihiin anigu waxaan qabaa weliba dowladda Soomaaliyeed iyadaan dee mataqaana haddii dowlad serious tahay oo dadka xamar jooga ay yihiin dad unionist oo daacad ka tahay midnimada Soomaaliyeed ka tahay hawlahan iyo kuwa badan ay ku jiraanba mar hore ka joojin lahayd marka laakiin arrinta ugu muhiimsan ee jecelahay inaan ira dhaxgalo waxa weeye hadda waxaan ognahay in beelaha deegaanku ay isku haystaan dhulka oo hadda maalmahan waxaan maqlaynay in la leeyahay beelaha boorihii oo beela leeyihiin annagaa le iyo annagaa le runtii waa nasiib daro in biciidkaan dili doono dhul shirkado illegal yimaadeen kontarad illegal lala galay oo niman beeloo reer burcu kontarad ay galeen oo dadka reer awdal waxba ka soo gaadhin in la isku qabsado horta waan waxaan qabaa inay ceeb tahay waxaa kaloo aniga u arkayaa meeshan waxay damacsan yihiin meeshan inay fidna ka abuuraan oo meeshan la isku dhaco kadibna private militia hadda aan kuu sheegay in ku lahaa resource ka ilaalinayaan meesha la keeno oo la yidhaahdo dadka dagaanka isdilayo kala dhex galayna meeshana beri ka maalin maleeshiya beelaad dowladda intay keento macdintan ay u qodato ilaashadaan oo halka maleeshiyada meesha ku ilaasho marka waxaan qabaa dadka dagaankii in wixii horta resource ka gobolka awdal ku jira dadka gobolka awdal oo dhan baa wadalo wada wax umada ka dhaxeeya in waxa si fududeey baan qabaa niman dilaalin oo kale reer awdali kama maqnaan qabaa oo hadda maanta waxaan arkay in suldaan oo ayna bilka hor baan u maleynaya isagoo leh in war bal iska qaata macdanta sunta uu naga daayay marka waxaan warinka suldaankii way u yiri ma taqaana sunta uu naga daayay marka waxa laga yaabaa nimankan politicians inay hawsha dhinac kaga jiraan laakiin waxaan kulli dadka reer awdal u sheegi lahaa in wax dheeftiisa dad kale guranayo wali ay naan gaadhin inaad ogtahay mooyaane meel ma jiro maanta Somaliland meesha la leeyahay meel wax laga qoday ama batrool laga soo saaray ma jirto dhulkan bariga hadda hawdkee togdheer ku yaala shirkad General tagtay oo dhulka habar institute u maleynaya markay tageen xabad baa laga hor keenay oo ka yaaceen hargeysa yimaadeen subaxdii ku xigtay diyaaradaha raaceen marka inay nagu ogolaano maanta ma taqaana shirkado illegal cid walba diiday inay dhulkeena yimaado ka qotaan anigu waxaan qabaa in nasiib darro tahay ma taqaana in la ogolaadana ma waa sax maxamed oo su'aasheeda kalaan qabo inaan ku weydiiyo waxay tahay maxaa sababay saan ogsoonahay 5 sano ugu dambeysay salaadiinta dhaqanka ee reer awdal inay horkacaan siyaasadda in horta waa su'aal wanaagsan oo runtii haddii aan horta dee salaadiintu inaad ogtahay mooyaane tradition baa jira dhulkeena oo traditionkaas wuxuu ahaa in dadka salaadiinta kulli dad karaamale weligood baxan jiray in ingiriiska horta aqaladii waxaan sameeyo qabaa'ilka markuu dhulka maamulayay lixdankii xornimada markii la helay awoodii suldaanadu way yaraatay oo meeshii state baa yimid kacaanku markuu 69kii yimidna nabadoonna dad la yidhaha way jireen laakiin awoodii mataqaanaa dhaqanku farahay ka baxday oo dee kacaanku waad ogeedo cidna uma joojinayn walaa suldaanna waxma weydiinin wuxuu qabsanaya sidaa qaban jiray in sagaashamaadkii laakiin markii dhibku yimid nima suldaanaa jiray oo runtii haddana waxay kaaga taabto suldaanada inagu aynu ku garaadaysanayn hantiyadii oo ay ka mid ahaayeen sheekh muuse goodaad oo daahir cilmi sheekh cabdilaahi jaamac maxamed guray nuur iyo mataqaana xaaji abubakar salaadiintaasi horta waxay kaga duwaneen kuwan nima waxay ahaayeen horta hantima gurta leh nin walba sheekii xaaji yahay oo masaajidka xagga hore ku tukada magaalada daare iyo bakhaare iyo hanti kule caruurtay dhaleen iyo waxay dhaleen dad wax bartay yihiin oo deegaankii wax ku leh dad ala kulli xaal isku filan bay ahaayeen midda kale aad ogtahay mooyaane deeqow
إن نينك بوليتيشنك وكلون وحنا كل إحنا اللي هي بضع هذو ضد كذا بضع كسر بحول دمانه ما كان نينك بوليتيشن وحنا كرامة كل ذات كذا حديث ما كان نيمان كسودان هذا كل شيء يكون سوتريه و 92 هي markii dhulkan dagaaladii masiibo ka dhaceen xaqana waxa ka taagnaa mingista ka joogay 91kii halkan ay sanam iyo dawladii Djibouti markay iyaduna sanamta taageeraysa si ay dadkoodu u badbaadiyaan oo dhiigan nimanka qoriga la orday uga badbaadaan nidaam nabadeed bay sameeyeen ku meel gaar ay sameeyeen nimankaas in asayeeshii waxay kaga duwanaayeen kuwan nimankaasi ninka siyaasiga ah waxna uga baahnayn kuwana daba filayna ninka maxamed ha jooga Hargeysa ha jooga iyagu dan uga meel hayn niman waxay ahayn isku filan oo karaamada ummadda ilaalinaya ay ahayn runtii oo aan cidna wax uga baahnayn oo saan ku sheegay tradition dheer ka soo jeeda oo mataqaan dadkii dee haasaasa laakiin waa sax adaa ku haysta maxamed laakiin waa runtaay maxaa laakiin kalifay inay iyagu siyaasiyiintii horkacaan hadday noqoto imika sidaan ogsoonahay waxaa jirtay afartii bilood u dambeysay inay codsi ay ula tegeen madaxweynaha ay arji ay qorteen ay ku dacoonayeen kaga hadlayeen saama qaybsiga arrimo badan oo saas haddii ay u hadlayaan MP-gi ma hadlo ninkii suldaankii baa reerka u hadlaya haddii gobolka arrin laga hadlayo suldaankii baa u hadlaya marka bal arrintaas suldaankii haddiiba shaqadoodii bay noqotay ay halneedsanaa soo macnaysay kuwa ka horeeyay hawsha qabanayeen maxaa iyaga kalifay iminka inay waa runtaay horta su-aashii horan aan dhammaystiro oo macnaha kaga duwan inaan ka hadlayo marka nimankan iminka hadda bedelay oo hadda meesha ordayaayo horta niman traditionka dheer ka soo jeeda maahan oo niman hanti ma guurtaa dhulka kuma laha niman mataqaanaa xadaarada dheer lama laha niman legacy oo problema xaliyay maaha oo hadda markaad eegto dhammaantood suldaan baadina dawal samata raggan meesha hadda ordayeen arkayno ma jiro dad problema waddanka ka soo jira wax ka soo xaliyay ama taariikh dheer oo wanaagsan oo loogu soo higto horta anigu kuma arkin marka nimankani waxay marka waxay gacanta u galeen nidaamkii meesha joogo 5 sano u dambeeyay waa aragtay miidiyaga hor fadhiya waxaa gacanta u galay arrimihii dhaqanka siyaasadda dhaqaalaha iyo baawarkii dawladeedba iyagu gacanta u galay marka niman baahiyeysan hanti aan lahayn nin walba dhowr dumar waxaasana leeyahay unemployed ayaa markaa masiirkii saldanadii gacanta loo geliyay haddaan ku noqdo warqadan hadda aad leedahay ay qaadeen ay hadda ay Hargeysa geeyeen anuu waxaan u arkaa waa qalad ayadoo joogaan dadkii aqoon iyo karti lagu dhulka joogaan in lagu daba dhunto odayaal oo la warqada Siraayo u geeyay Siraayo ogtiin mooyaane Siraayo since 1969 buu dawlad ku soo jiray jabhad buu ahaa dhiig buu soo daadiyay waa nin siyaasiya maanta waxaa ku xeeraysan niman lamida وهذا نيك هذا أفيان كي هذا سلمان ده حلالي وكله وانكي ريريها إنسان ما تكسمين تدك لو لين قبل تدك كدم بيوي إن ضمن عاس كوري سيهين هيا وضيال بالوضر وحيورد وحرك هنا وده مسكين حاجة ضمن وحكون دومانية رجي عمود يونيفرسيتي آلا يبور ما تشوف كل دومانية سيرايو وتوحرك هنا يعني أنا وحن قبا يعني غلط إن وده مسكين وقاركود وحنا أنا بروح وحنا آخرين لا يراد أرض سيرايو حرك هنا أرض تحسوا قلب waxaase ku soo hadhay arrinta warqadda iyo jawaabteeda ninka haddaad deeqow dacweyso ood ku tiraahdo mataqaanaa musuqmaasuq baad wadaa qaraabakiil baad samaysay baawar garaab baad samaysay dad baad gees gelisay awooddeedii baad hoos gelisay waadna cadaadinaysaa ninka haddaad tiraahdo ood dacweyso oo dacwad ku soo ibtood maxkamad geysa ninkaasi dee waa inaad sugtaa ninkaasi maxkamadaas intay kala saarayso soo warqadu may geen Siraayo soomay odhan mataqaanaa dhibkaasaa jira ka jawaabsay ma odhan dee haddana ninkii aad dacweynaysa inaad shaah la cabtood mataqaanaa madaxtooyadana tagto ood haddana la fadhiisato dee waa qalad taas waxay ku tusaysaa in nimankan suldaanadu ay munaafaqad xun ku jiraan dadkiina waxbay u sheegayaan dawladdiina dhinac bay uga jiraan marka dhibaatooyinkan waxay dadku isu qaban laayihiin hawshii ninkan ay ku dacweeyeen loogama jawaabin maalin walbana hadda waxaa kaysa iyagoo ninkii way la fadhiyaan oo waa kuwan hole marka wax badan baa isqaban sideeba markaa looga raad bixi lahaa arrintan salaadiinta ee shaqadoodii ugu laaban lahaayeen oo ninka MP-gu u hadli lahaa deegaanadu ka soo jeeda wallahi horta dee waa arrin adag horta nimanka dee waa niman horta awoodo badan bay yeeshaan iminka runtii laga yaabo sida looga takhaluso inay adkaan kartaa laga yaabaa laakiin anigu waxaan qabaa in horta waa marka koowaade in laga saaro arrimaha siyaasadda
gebi ahaanba ka faraha kala baxaan hadday noqoto baawar hadday noqoto hawlo kale hadday noqoto masiirka kule anigu kule ka mid ahay waa raggan la dee waddanka waan iska xoreynaynaa horta anagu dee kooba jirno waxaa laleeyahay baawar shareeca kooba jirnaba laakiin haddana haddii la rabo dadka reer awdal inay masiirkooda ka tashadaan ay wax qabsadaan nimanka suldaanada gebi ahaanba horta in laga saaro arrimahan ay ku jiraan hadda siyaasadda ay ku noqdaan dhaqankoodii kow mar labaad waxaan dhadhaariska laleeyahay suldaanada dhadhaar ka mas-uula tradishinku wuxuu ahaan jiray dadka inta magta wada bixisa aqal bay lahaayeen kadibna tolnimadaa guud ee gadabursada dadka ka dhexaysay marka waxaan horta laga takhalluso dhadhaarada la leeyahay oo suldaanadani ku noqdaan jufooyinkii aqalada u ahaayeen ay ku noqdaan arrimaha siyaasaddana faraha kala baxaan oo dadkii hawshan geli lahaa nimankan dhuumanaya ee odayaasha iska soo hormarinaya siraanyana u tagaan iyagaa laga rabay hawshaa galaan markaan waxaan qabaa nimankan san horta hawl kaleba u gelin nimanka suldaanada inay ku noqdaan arrimahoodii dhaqan haddii la yidhahdana dee beelaha gadabuursi tradition dheer oo 400 sanadooda bay leeyihin oo dee maaragtay dee monarchy la odhan karo taariikh dheer leh oo meel lagu noqdo leh xadaaradiisa la garanayo dadkan kale markaan waxaan qabaa waa dad la abuuray oo habka loo abuurayna waxay ahayd dad rabay si guracan inay siyaasadda iyo dhaqanka dadka reer awdal gacanta ugu dhigaan oo xukuumadda siraanyana gacan saar la leh ayaa horta hawshan abuuray oo hadda haddaad aragto maanta internetka hargeysa eegto nin kastoo saasi wuxuu ku leeyahay hawlaha reer awdal oo suldaanada hala weydiyo ku leeyahay haddaad aragtay meel suldaan waxaa la weydiin laleeyahayna waa meel ayna dawlad ka jira jabuuti maad aragtay suldaan wax la weydiinayo zoonfaafkii maad aragtay nin suldaan wax la weydiinayo xawar maad aragtay ma jirto puntland aad arkayso maalinta baarlamaanka la dooranayo suldaan wax lama weydiiyo politicians baa orday hargeysa ninka orday waa siraanye iyo muuse bixi iyo faysal baa orday rag siyaasiyiin hor fadhiistaan wey waa ceeb baan qabaa anugu nin asanama iyo nin wasiire iyo nin siyaasi oo isaaqa in oday gadabuursiyo waxna qorin la horgeeyo la wax ka soo goob qalad baan qabaa marka haddaad aragta meel suldaan horboodiyo waa meel rajo badani ka jirin wey ma fahamta waxaana waa in la kala xaliyaa si waxaan inta ay meel uga soo baxaan waa sax waan garanay maxamed muddadan waxaad u ololeysaa kacdoonka shacabka maxaad nooga sheegi kartaa waxa uu salka ku hayo kacdoonkaasi horta dee hadda ka hor mar la weydiiyo waan ka hadlay horta kacdoonkani laablakac maaha deeqow anigu runtii qunyar socod baana ma ihi nin boodbooda ma ihi waxanina maaha wax dareen maanta lagu yimid maaha waa dareen dhammaantan ka gooxayay laakiin mararka qaarkood geesinimadooda nin baa ku dhaqaaqa dadun baa ku dhaqaaqa waxayna muujinaysaa horta in shift uu ku yimid dadka reer awdal oo cabashadii iyo guuxii iyo baryadii jiilkan cusbe noo yidhaahdeen suldaan wabar iyo cabdi shidabile cabdibuur oo ahaa meeyarkii boorma oo ka turjumaya jiilkan cusube reer awdal ee diidan in wax loo yeedhiyo ama mataqaanaa laba af lagula hadla diidan waa rag maanta hadday mataqaanaa maanta boorma yimaadaan suldaanka iyo cabdi shidaba cruiserkooda intay qaataan iska nasan karo mataqaa nolosha galka laakiin waxay door bideen dadkan si wax u noqdaan inay buraha galaan marka hortani shiftigan yimid waa guux muddo dheer soo jiray oo dadka reer awdal ay guuxayeen oo inaad ogtiin mooyaane annaga waxaa layna defeat gareeyey 1915kii haddaa taariikhtan buuggan hadda halkan aan ku hayo waxaa la yidhaahdaa the untold story of northern Somalia Muuse Joma qoray wuxuu ka hadlayaa taariikhdan dadkan reer awdal shiftiga ku dhacay 1915kii nimankii ingiriiska dhulka joogay dadka reer awdal gees bay geliyeen kadib mataqaana halkana xayslaasa geesna geliya xaggana French baa geesna geliya dadku marka waa la defeat gareeyay dadkuna marka la defeat gareeyay waqti bay ku qaateen inay soo kacaan hadda nimanka Ismaaliinta la yiraahdo ka talin jiray khilaafada dheer ah waa aragtay hoos baa la geliyay dagaalkii kood kadib laakiin hadda dadku duntoodu markay wanaagsan tahay way soo noqdaan maanta waddanka Turkiga maanta trying to get back anu waxaan qabaa kacdoonkani wuxuu bilow u yahay dadkii reer awdal ee xadaaradda dheer lahaa reer awdal oo raba inay dib raadkoodii u raacaan
marka halgankani process buu mari doonaa oo dadku dee kolley ninba waqti buu taageeri doonaa. waa hagaag laakiin dadku way ku kala fikir duwan yihiin dadka deegaanada awdal ka soo jeeda fikirkaas kacdoonkaas siibaa dadka loo wada mideyn lahaa uu wada gaari lahaa fikirkaas. wallahi horta kolley dad unbaa geesinimaday sameeyo dadkan hormara laakiin sana horeba u sheegay guuxani nin ka maqan ma jiro nin walbana wuu ku fikiray laakiin dadkana mid baan u sheegi lahaa maanta fursad baa jirta waxaa ragga aan ka mid ahay inay taageeraan keenay fursad baa jirta 1991kii niman qorya wata waa kay dumiyeen dowladdii Soomaaliya kadibna iyagu iska waraceen maanta 2015 kuwii dagaalka galay iyo kuwaan galinba ama ninka Soomaaliga Jubbaha joogo ama Baydhabo joogo ama gaalka Cayha ka joogo ama Puntland joogo nin walba wuxuu rabaa maamul inuu sameeyo maamulkaasna waxaa loo raacay 18 gobol ay jiray 18kaas aynu ka mid ahayn gobolada iyo xududahana ya Hargeysa ma sameeyo waxa hadda lagu leeyahay gobolka Gabiley iyo gobolkan lagu leeyahay ma taqaanaa kan waa hawd iyo Maroodijeex waxaan wax jira ma xududahana dadka min xuduud waa laba mid waa international border ko ka adduunyada u kala dhaxeeya midna dowlad recognized oo la aqoonsan yahay oo international lawga ama United Nations aqoonsan yahay ba xuduudaha sameeyay xuduudu kii awdal weyn marka Soomaaliland hadda la sheegayo dowlad Soomaaliyeed ma aqoonsan ko international community ma aqoonsan inay ku jirnayna ma aqoonsan waa anaga la waan ka baxaynaa xuduudaha marka jira waa kii dowladda Soomaaliland wankii markii dhacday xuduudihii jiray weey sida nin walba u sameeysanayaan gobolkeena u sameeysanayna marka fursad waxaa jirta aan ku celiyo shalay halkan aslan baan naga fadhiday halkan Mangistan naga fadhiday halkan Djibouti iyo aslan taagsan baan naga timaanta ma jirto fursad waxaa jirta aynu gobolkeennii kula soo noqonon maamulkeennii sameysana ayaa jirta dadkan hadda allahayd waa lagu kala qaybsan yahay dad waxaa jira ama ganacsataa ama mashaariqaata ama siyaasadka ku jira ama ma qabo marin la wada baxayo waa la kala dambeyn doonaa oo dadku ninba marba soo bixi doonaa laakiin waxay imaan doontaa waqti la oran doono waxaa jiraysa aan oran doono you are either with us or with Eastern by imaan doonta oo dadka u sheegi doono ama dadka raba reer awdal inay mustaqbalkooda ka tashadaan ay raba inay ismaamushaan baad ka mid tahay ama Eastern baad ka mid tahay mar la oran doono imaan doonta takala in hadalkan ku dheeraadana malaynaya deeqo xorriyadu freedom process bully processka xorriyadu waxa uu ka horeeyaa qoriga intaadan gaadhin qofka hawsha u horeeyo sanad waxa kamid ah inaad noo tiraahdo noodu wax fudud ma dadka reer awdal in badan bay yes lahaayeen no inay bartaan qofka markaad noo tiraahdo noodaas xataa rali ka noqon maayo marka dad badan baa noodaa odhan doona waana la sii kala horeynayaa laakiin nin walba aan waxaan qabaa reer awdal processkan waan sii kala horeynaa mooyaane waa la soo wada geli doonaa sababtoo waxaa laga hadlayaa waxa weeye waa self determination waxa weeyaan inaan nin burcad jooga anaan u daba fadhiisan inuu ma taqaana anaga macdaha kan idinka qodaya ay dhahdo ama maseerka iyaga uu ka hadlo waa taas weeye maxamed warunta sidee bay laakiin u fulinaysiin dastuurka federaalka ee Soomaaliya waxa ku qoran federalism qofku markuu gobolku markuu noqonayo gobol ka tirsan oo buuxo gooni u taagan waa inuu lahaadaa 2 gobol amba bad ilaa 3 gobol iyo qodobo badan oo ah amba bad amba beri amba waxyaalo badan oo saas ah marka deegaan ahaan sibad u buuxinaysiin qodobkaas dastuurka federaalka Soomaaliya والله أرتنا أكتر دستور هو professional ودستور كمل جارو برجع له دستور هو حسنية المدن بدلان يوحنا مريم يدولد كمل جار كده بس profession بدن بليان أرت ما وضع خير هنتي ما عنده ودن حل دبان ووضع فريسنا وبرلمان كتير وير دستورك قيبه وحا كتير قبل لضو هذا دانتو كنت يسوي قبل كسيدي يسوي فضل كسر بيركم أنا مدة كلام نظام بانو ديدينا نظام كان حكومة درسكن ما عنده waxaan maqlay in waalano in calwarabo la yiraahdo le hadii Soomaaliya lagu biirayo iyadoo wada socdaal la tagi doono wuxuu haystaa umada inuu jeebka ku rito si dambiisha hore u sii qaato annagu Soomaaliya gobolka awdal annagu aan dawladda federaalka ka mid noqonayna oo waxa yagi wadana ka mid noqonayna hadii tahay suuro gali weydo
gobolka awdal gobol cusub maahine waa anagu xadaarad adal la odhanaya baahine gaar baanu isku taagi ilaa inta shuruudaha la buuxinayo marka ha ka cabsanin nin hargeysa jooga ama nin muqdisho jooga inuu kugu khasba nin kale taa ha ka cabsanin waan garanay maxamedow sideebaad rabtaan inaad isku waafajisaan kacdoonkan suudaan wabar hogaaminayo gudaha iyo qurba joogii awdal state wallahi niyahow horta dee awdal stateku waa kacdoon qurbaha ka bilowday uuna ku guulaystay horta inuu mataqaanaa uu noqdo dhimbeel dab ah oo mataqaanaa dadkii reer awdal wax tusta ayuu noqdo laakiin nimankan hadda jabadda ku dhawaaqay waxay ku saxsan yihiin waxa weeye in awdal stateka qurbaha xagga leadershipka tafraaruq baa ka jira oo waxaad moodaa leadershipka qurbuhu organizer maahan way dee dad baa way kala baabaxsan yihiin wuxuuna mar hadduu hoggaankiisu kala baabaxo dee wuxuu u baahan yahay in dadkii qurbaha joogna isku noqdaan ay dee waxaliyaan barlankooda laakiin nimankan ila jabadda xoreynta awdal tafraaruqa way arkayaan laakiin mid baan la diidi karin oo dadkaa maanta taageersan kacdoonka ee ugu horeeyaay oo dadkii awdal stateka ahaa wey horta magacuna horta waa magac baxay oo sidaa khaatumaba u baxday iyo khaatuma iyo jubbaland u baxay laakiin waxaan qabaa aakhirka kolley dee waa meel baa laisuu geyn doonaa laakiin ujeeddada laga wada leeyahay waa ismaamul oo kolley isku meelun baa loo socdaa aan u malaynaya waana xalis baan qabaa markii waktigeeda la gaaro waxaan ogsoonahay inaad ka mid ahayd xubnaha sare ee ururkii TLC iminkana waxaa jirta balse ay ummadda gadabuursi ay ku ballansanaayeen qowmiyadda gadabuursi shirka qabsoomi dooma oo ka dhacayay degmada lughaya geb habase ahaatee waxaa jirta in shirkii iminka salaadiintu ay fikir kala duwan qabaan ay ku kala qaybsan yihiin sidaad u aragtaa arrintaas amba maxaad ka qabtaa horta dadku hadday dee waan tashanaynaa waan sharaynaa hadday yidhahdaan dee mar walba horta anigu waanu soo dhaweyna haddaan qurba jooginahay waan soo dhaweynaynaa shirkana runtii muddo la reexay hadda magaaladan aan joogno rag baa raba inay ka baxaan waa cabdiraxmaan xaaji abubakar baa kamid dad baa yidhi waa qurbahan ka tegayna waan ka qayb galayna shirkaas oo shirku runtii ujeeddadu waxayd markii hore in dadka inta laisku yimaado somalilandan iyo barlamadan jira go-aan adag laga gaaro shirka runtii waa la riixay markii dambena maalintii la qaban lahaa maalin ka hor December 30th maalin markii ka hadhay oo shirkii aan cidna war ka hayn baa waxaa la yidhi 2 week kadib baan qabanaynaa haddana week ka hor baa la sheegan malaya dateeka marka ma malaynayo dadka qurba joogku hadda inay suurta galaysan ka qayb galaan oo wixii wax rash la geliyay weeye haddana waxaan maqlayay le dad badan oo dib ha loo dhigo anigu waxaan qabaa taladan la roogin waa lagu rafaadaa shirka ajadiisa hadday noqoto wax laga hadlaya hadday noqoto waxaa wanaagsan wax la sii jilciyo inuu noqdo arrinta kale intaa ku darayo maadaama anu raggan dee tallaabe aan taageersanayo anu waxaan qabaa niyahow arrimaha xasaasiga marka laga hadlayo oo ku saabsan mustaqbalka iyo maseerka ummadda waxaa habboon in meel xora aad kaga hadasho maanta waan ognahay askartii siraanya inay boorama dhex wareegayso baki bay joogtaa boorama bay joogtaa quljeed bay joogtaa dad maleeshiyada islam ku dhex jirto siyaasiyiintoodii ka kalluumaysanayaan in la yidhaahdo shir bay qaban karaan oo arrimo go-aan oo adag bay gaari karaan anigu ma qabo horta shirku haddii la qabanayo hala qabto laakiin haddii la rabo arrimo ad adag oo mustaqbal in go-aan laga gaaro shirkaasi ama jigjiga ha la geeyo ama jabuuti ha la geeyo ama waxaan odhan lahaa meel xor ah ha la geeyo oo dadka gadabuursiga reer awdal ee dibadda jooga gudaha jooga ku wada hadlaan oo go-aano adag laga qaato laakiin xaaladdu sidan ay tahay anu haddii shir noocaas oo kale inuu ka dhaco waxaa laga yaabaa un inay ka soo baxdo un arrintii la odhan jiray in somaliland waa muqadas dowladdana waxaasaan ka rabnaa wax saas oo kale anu inay ka soo baxdaa laga yaabaa sidoo kalena waxaan qabaa in ilaa ummadoo midaysan oo isku raaca mooyaane inaan lagu degdegin wax muran ka jiro inaan lagu degdegin baan qabaan waan garanay maxamed oo inagoo soo gabagabaynaynaa waxaan rabay inaan hal su-aalo kale ku weydiiyo qaar ka mid a siyaasiyiinta beesha dhexe
ayaa mar kasta waxay carabka ku dhuftaan reer awdal minority inay yihiin ayay kusoo xukumeen si aad u aragtaa arrintaas ambaad ku macnayn lahayd والله horta anigu in waqti lagu bixiyo waxaa qashinkaasoo kale anigu ma qabo laakiin dee awdal maaha wax cusub maaha marka la leeyahay gumaysi baa kala qaybiyay dhulka soomaaliyeed oo shan u qaybiyey dadka gumaysigu sida runta u qaybiyey waxaa kamid a beelaha ogaadan iyo beelaha awdal baa kamid oo 3 wadan baan kala galay xadaaradda awdal waa la ogyahay adal empire qarnigii 13aad inay soo jirtay bari dhaweydba markii nimanka turkidu ay dhulka yimaadeen seelic iyo xeebaha awdal bay soo mareen oo seelic way yimaadeen markii soomaalida ay la kulmayeen oo siraayo uu kamid ah mar ay la kulmeen waxay yidhahdeen anagu waxaan taariikhda ku haynaa boqortooyo adal la yidhahdo halkaa jirta saas kule siraayo wuxuu yidhi kuwii ka soo haray waa annaga buu yidhi waa beenti oo siraayo alla shaqo kumada dadkani waa dadkii ka talinayay bulaxaar iyo jirjige iyo inta udhaxaysa seelic udhaxaysa ka talinayay wey runtii taariikh bay rabaan inay abuuraan taariikhdiina meel ay ka soo galaan waylaayi for the last 50 years taariikh bay rabeen inay dejiyaan tii axmed guri kuma jiraan tii darwiishka kuma jiraan taariikha badan kuma jiraan mararka qaarkood ma raba runtii inaan ku fogaado laakiin badanaan waxaan arkaa un iyagoo leh dhawankii markaan baxnay inaan tobankii markaan soo tallaabnay hirogooda geesiyadoodu waa muuse biixi iyo siraanyo wey annagana geesiyaasheedu waxa weeye waa axmed guri iyo darwiishkiina cabdulla xasan iyo mataqaanaa iyo muxuu ahaa ugaasiyadii iyo mataqaanaa waxaan malaynayaa bashiir sheekh cumar qoodo dee nin bashiiroo qoraaweyn yaa wuxuu yidhi hadda ka hor isagoo dhalinyaro reer awdal la hadlaya baa wuxuu yidhi war niman yahow nimankiinan hadda dhalinyaradii wax cusub meel kama bilaabaysaane xidado dhaadheer baad ku taagan tihiinoo waxyaaba fara badan baad bilow u hayday hadday noqoto mataqaanaa heshiiskii ingiriiskii haragga lagu qoray hadday noqoto ugaasyadii 400 jira hadday noqoto sugaantii soomaalida balwadii lasoo bilaabay hadday noqoto jaamacadihii u horreeyay hadday noqoto in meesha iska u qabsan waxyaaba badan oo fayrasaan dadka taariikhlan waa ay leeyihiin buu ka hadlayay marka awdal mid maanta horta la sharxayo maaha dadka reer awdal waxaan odhan lahaa dadkaa iska hadlaya waqtiyaan lagu luminin oo waxayaan lagu mashquulinin oo taariikhdana taariikh hore u taallay wey hirogayagiina waa la yaqaanaa xasan sheekh muxuu yidhi aqoon la-aan waa iftiin la-aan soo maaha marka iftiinkana hore u baxay anigu runtii wax badan ku lumin maayo dadka reer awdal taariikhdoodana waa wax qoran weeye marka dadka waxaan odhan lahaa doon baadan waxba yaanan waxaa lagu mashquulin baan odhan lahaa mataqaana in loo jawaabo yaan lasku mashquulin waa hagaag maxamed inagoo soo gabagabaysanana programkeeni maxaa dadka usoo jeedin lahayd bulshada amba ummadda dhan amba siyaasadda haato amba waanaha haato maxaad ummadda usoo jeedin lahayd waa tahay horta waad mahadsan tahay dee in badanna waan hadlaan u malaynaya arrimo badanna waan dhex galnay laakiin waxaan ku gabagabayn lahaa runtii waxaa la joogaa fursado waxaa jirta midna waa fursad qarni midna waa fursad generation weeye warse waa mid sana walba kusoo fursaddan iminka cabdi shida bile iyo suldaan wabar ay hormareen waa fursad generational wey 1991 diyaar maanaan ahayn inaan dhulkeena goosano maamul samaysano laakiin maanta diyaar baanu nahay dadkeenu u bisilya anu waxaan qabaa in dadka reer awdal nin walba la gaadho loo sharxo ninkaad u sharxi karto laakiin dee waxaana u soconaya oo dadka waxaan u sheegaya horta waxaan wax joogsanaya maaha wax laga noqonayo maaha nimankaas say u tallaabeen wey inay hore usii socoto mooyaane ninka rajaynaya isle wadahadal baa la geliyo saami qaybsi baa la bedeliyo prime minister baa mataqaanaa iyo reer awdal la siin iyo in mataqaanaa siraanya wax keenaya iyo ama ninka raba inuu mataqaanaa arrintan hadda socoto isla jawayn baad ku helaysaa fadlan waxaan odhan lahaa gaar ahaan weliba ragga hadda electionada galaya war niman yaw lacagtu inaad ka khasaarin doorasho waxaa ugu dambaysa tii la galaa ugu dambayn doonta